munaasabad ay ka qayb galeen waalidiin iyo culimo iyo weliba ardayda ayaa lagu qabtay magaalada Copenhagen ee xarunta waddanka Denmark iyadoo mid ka mid ah madrasooyinka ku yaala halkaasi ay soo abaabushay halkaasina carruurta lagu baro diinta islaamka iyo weliba cilmiga maadiga ah sida uu ku soo warramayo wariyaheena Faisal Karate. munaasabad si heersare loo soo agaasimay ayaa magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark loogu qabtay arday Soomaaliyeed oo tiradooda ay gaarayso ilaa 100 arday oo isugu jiraan wiilal iyo gabdho. munaasabadaas oo ahayd munaasabad ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha qaaradda Yurub waxaana ka mid ahaa culamaa diin iyo waalidiin. munaasabadaas waxaa soo qaban qaabiyay Saylica Academy oo ahayd halkii ay ku barteen diinta islaamka. waana munaasabadii ugu weyneyd ee arday Soomaaliyeed oo tiradooda ay gaarayso intaas ay ku bartaan diinta islaamka qaaradda Yurub. intaas kadib quraan baan ku bilaabaynaa insha Allah aayado quraana ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما اللهم زدني علما. sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa waalidiinta martida qiimaha badan iyo culimadeena meesha fadhida insha Allah ta'ala waxaynu u fadhinaa xaflad qalin jabin ardayda Saylica Academy dufcadii labaad iyo saddexaad oo isla fadhiya insha Allah ta'ala. diintiina wad garanaysaan baahiyihii dhalinyaradu qabteen wad garanaysaan bulshadu waxay u baahan tahay wad garanaysaan qaabka dhulkan looga dhaqmana wad fahmaysaan Soomaali oo kaliya idinma baahna muslim kordhaba idin baahan muslim oo kaliya idinma baahna dadka waddankan degan oo dhan ba idin baahan u baahan waxaad garanaysaan ugu yaraan islaamka inaad ka fahamsiisaan suurada saxda ah. noloshu waa qor isu dhiib soo taqaaneen ciyaarta qoriga la isu dhiibo qofku markuu soo ordo buu markuu daal rabo buu qof kale saaxiibkiisa buu qoriga ku wareejinaya qofka kale qorigii la ordaya qofka loo sii dhiibaya markaas ilaa meeshii targetku ha laga tago. waxaa idin sugaa dadka muslimiinta ah inaad diintii gaarsiidin waxaa idin sugaa dadka loo yimid oo runtii dadka soo dhaweeyay waxay idinka sugayeen inaad adinku cayl bixidin maahayn inaad diyaaradaha sida loo sameeyo bartiinna maahayn wax ka qaalisanaad seetiin oo qaali ah oo ay ahayd inaad adinkuna soo kordhidin iyagu intii ay hayeen waa idin siiyeen adinkuna intaad haydiin aad siideen ayaa la rabaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaan waalidkii ka qayb qaatay iyo intii garabka ku siisayba dhammaan miisaanka xasanadka Allah ugu daro. intaa kadib runtii wixii ka dhacay Saylica Academy lama soo koobi karo laakiin erayo yar oo kooban baan rabaa inaan ka dhaho. kow waa dardaaran cilmi badan iyo aqoon badan baad xambaarteen. aqoonta la xambaaray waa mas'uuliyad weyn mana dhammaanin oo aqoontu ma dhammaato wama uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan. marka waxaa loo baahan yahay in aqoontii la siyaadsado oo la badsado وقل رب زدني علما آياته الآخرين بكملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Dejlige ansigter, gode mennesker samlet sammen, og de har det samme mål. MashaAllah. والله سبحانه وتعالى متايس أربعة وإن شاء الله بسملس إن شاء الله جنة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. قبل التعليم برانية ويلو التعليم برانية قرآن كي تنوع مربها بين بمدنا تجينيه runtii waxay ahayd maalmo aad u qiimo badan soo gaar oo kaalay oo saadka wacan qaata sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. xafladaas oo ku soo gabagaboodo jawi aad iyo aad u wanaagsan. Faisal Karate, Universal TV, magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark.